kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaanu idiin soo gudbin doonaa odayaasha dhaqanka Puntland oo go'aan culus soo saaray isla markaana si cad u diiday in la dumiyo nidaamka Puntland waanu idiin soo gudbin doonaa xogta tilmaamayso in odayaasha dhaqanka markan go'aankaas culus ay qaateen isla markaana waxay digniin u jeediyeen Siciidani dowladda federaalka way ka diideen in la dumiyo Puntland sidoo kalena Siciidani digniin culus ayay u direen haddaba muxuu yahay go'aanka odayaasha asaasayaasha Puntland ee dhidibada u taagay nidaamka haatan Puntland ee dhowr 20 jirsaday go'aanka ay soo saareen waa idin soo gudbin doonaa dhinaca kale maamulka gobolka Mudug go'aan adag ay soo saareen oo ka dhana tallaabooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ay markaas qaadaysay dhawaanahan sidoo kale saraakiil dowladda federaalka u qaabilsanayd in ciidamada ay uga qoraan deegaanada Puntland oo gacanta lagu dhigay iyo xiisad ka taagan magaalooyinka Boosaaso armo ilaa ay Garowe waanu idin soo gudbin doonaa inta warbixinteena aynu ku guda jirno ee daawadayaal soo dhaw marka koowaad muuqaalkan la garay sidoo kalena si share garay si dad badan xogteena ayuu gaadho uga hagaag aynu ku bilownaa odayaasha dhaqanka Puntland ee asaasayaashii midabada u taagay nidaamka haatan dhowr 20 jirsaday ee Puntland waxay soo saareen go'aan aad xasaasi u ah waxayna si adag ay uga hor yimaadeen qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Puntland lagu duulo oo ciidamo la geeyo si adag ay uga hor yimaadeen haddaba go'aanka odayaasha dhaqanka ee Puntland wuxuu hadda ku soo aadayaa xilli ay sii kordheen dhaqaaqyada iska soo horjeedo ee Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ee gudaha deegaanadeeda ka socda dowladda federaalka waxay ciidamo ka qoratay deegaanada Puntland waxay dib u howlgelisay qaybtii 54aad ee ciidanka xoogga dalka waxaana taliye looga dhigay General Jimcaale Jaamac Takar oo haatan ku sugan isla markaana gaaray magaalada Garowe sida xoguhu ay sheegayaan haddaba General Jaamac Takar wararka qaar waxay leeyihiin laascaanood ayuu joogaa balse xoga soo baxay saacadii la soo dhaafay waxay muujinayaan in kastoo saxaanshooda boqolkiiba boqol aan idin sheegi karin laakiin waxay sheegayaan in Garowe uu gaaray xalay oo halkaas uu ku sugan yahay wahagaag intaas wixii ka dambeeyay waxaa jira baaqiyo kala duwan oo ka soo baxay qaybaha bulshada markan odayaasha dhaqanka galka ay sababta kala baxeen odayaasha dhaqanka Puntland Siciidani marka hore waxay ka diidanayeen in uu dowladda khilaafo oo qorshaheeda uu ka soo horjeesto isla markaana uu diido balse hadda waxay arkeen nidaamkii ay soo dhisayeen dhowr 20 ka sano ee maalinba wax lagu soo darayay maalinba meel soo taagnaa in maanta sagxadda uu ku dhow yahay in la burburiyo ee dowladda go'aan ku gaartay xasasha odayaasha marka go'aan culus ay soo saareen ma aha waxaan ka hadlayno odayaal dhaqameed meel isugu yimaaday oo iska hadlay ma aha waxaan ka hadlayno waa odayaashii dhaqanka Puntland ee gacantooda ku soo aasaasay waliba odayaashii 135 oday ee carto dowladda Soomaaliya ku soo dhisay waa Soomaaliya xataa ka soo dhisay qoraal ayaa marka wuxuu soo saaray Sultan Garaase ee qoraal soo saaray Sultan Garaase wuxuu ka mid yahay salaadiinta ugu caansan deegaanada Puntland waliba wuxuu si weyn muddooyinkii u dambeeyay uga soo horjeeday qorshaha Dani waatii maamulka waqooyi bari uu taageeray hadda laakiin wuxuu leeyahay war nidaamkii intaas oo sano aan dhisaynay marna kama ogolaanayna Xasan Sheekh in la dumiyo qoraal ayuuna soo saaray saddex dhinac ayuu la hadlay dowladda federaalka uu la hadlay Siciidani iyo maamulkiisana uu la hadlay shacabka Puntlandna uu la hadlay intaasba si gaar ah ayuu la hadlay dowladda federaalka wuxuu ku yiri nidaamka Puntland ee muddada dheer aan soo dhisaynay waa khad cas in la dumiyo mana yeelayna cidna kama aqbaleen in nidaamkaas la dumiyo taas waa qodob cad oo wax mugdi ah ku jirin halkaas ii dhiga sidoo kale Sultan Garaase waxa uu sheegay in Puntland ay qayb ka ahayd dhismaha federaalka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aan laga ogolaanin markan in ay khalkhal geliso ammaanka deegaanada Puntland iyo horumarka iyo dhismaha ka socdo marnaba lagama aqbalayo marna wuxuu la hadlay Siciidani oo waxa uu yiri
sidoo kalena ma aqbalayna ayuu yiri in la dumiyo dowladda federaalka taasna waa khad cas ayuu yiri sida aanan u aqbalayn ayuu yiri dowladda federaalka in la dumiyo yaan haddana u aqbalaynin in la dumiyo Puntland sidoo kale shacabka Puntland fariin ayuu la wadaagay fariintaasna waxay ahayd in la isku duubnaado midnimada laga shaqeeyo lagana fogaado tafaraaruqa iyo sidoo kale in la isdiriro oo gacan la soo tago hal meelna ha looga soo wada jeestaa yiri cid kasta oo isku daydo in Puntland burburkeeda iyo duminteeda ay ka shaqeyso waayahay taasna inaa fahanteen yaan rajeynaya haddaba waxaa jiray kulan xasaasi ah nabdoon garaasa dalka uu ka maqan yahay xilliga go'aankaas uu soo saaray odayaasha dhaqanka ee Puntland Siciidani uu la kulmay waxay u sheegeen in isagana uu isdajiyo kana fogaado in uu dhiig daato sidoo kalena waxay sheegeen in aysan iyagaba ka aqbalaynin cid kasta oo isku daydo in ay Puntland damiso waxayna sheegeen in nimanka xamar laga soo diray laga aqbali doono qorshahooda balse Siciidani isaga wax tallaabo ah uusan qaadin halkaas hadaa uga gudbo gobolka Mudug maamulka gobolka Mudug war ay soo saareen waxayna go'aan ka soo saareen shirarka lagu qabanayo deegaanada gobolka Mudug gaar ahaan qaybta Puntland ay xukunto waxayna sheegeen in shir aan ogolaasho markaasi aan looga haysan Puntland in aan la qaban karin arrintan marka waxay uga gol leeyihiin in ay joojiyaan tallaabooyin dhowr ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u qaaday Puntland oo kamid ah in shirar la qabto beelaha la shiriyo siyaasiyiinta mucaaradka la shiriyo ciidamo la qoro waxyaabahaas oo dhan si marka hadda looga hortago maamulka gobolka Mudug go'aan ayuu ka soo saaray wax shir ah oo aysan Puntland raalli ka ahayn ogoleen warqadda fasaxa aan la soo qaadan in aan la qaban karin talaabadan marka waxaa looga hortagayaa qorshaha filla Soomaaliya ay ka damacsan tahay Puntland gaar ahaan gobolka Mudug waayahay dhinaca kale xiisad ayaa ka taagan magaalooyinka Boosaaso Carmo iyo Garowe xalay magaalada Boosaaso ciidamada kala duwan ee taabacsan dowladda federaalka dhaqdhaqaaqyo halkaas ka sameeyeen dhaqdhaqaaqyadaas waxay uga hortagayeen yani ama ay ku diidanayeen tallaabooyinka Puntland ay qaadaysa saacadii la soo dhaafay oo ay weerartay saraakiil dowladda federaalka u qaabilsanayd qorista ciidamada waxaana lagu weeraray sida xogtu ay tilmaamayaan deegaanka Falad Yaale waxaana markaasi halkaasi lagu qabtay laba sarkaal sida xoguhu ay sheegayaan oo u qaabilsanaa dowladda federaalka Soomaaliya qorista ciidamada kala duwan haddaba afayeenka ciidanka danab Janaraal Jimcaale uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo Maxamed Beelaaf ayaa soo hadlay waxaana yiri in isku day dil ay ka badbaadeen goobta la weeraray isaga ayaa ku sugnaa sida xoguhu tilmaamayaan wuxuuna sheegay in si toos ah loo beegsaday lana doonayo in la kharijiyo xaaladda Puntland haatan meel xasaasi ah ay maraysaa Puntland waxay diidan tahay qorshaha dowladda federaalka halka dowladda federaalkana ay si laba jilbaartay tallaabooyinka ay u qaadayso dhinaca Puntland haddana la soo gaartay dhamaadka muuqaalkan oo ku maadsan tahay daawada muuqaalkan la gareysto kan si shir garee si dad badan xogteena ay u gaadho